ugu yaraan 3 qof oo mid caruur yahay ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen magaalada Beledweyne 24 saacadood ee ugu dambeeyay kadib markii webiga Shabeelle uu fatahay ilaa 5,000 oo qoys ayaana mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan sheegeen inay ku barakaceen fatahaada webiga. dadkaasi waxay codsadeen gargaar degdeg ah si loo samata bixiyo dadka ay biyuhu go'doomiyeen. wariyaha BBC Cali Nuur Salaad ayaa faahfaahinaya sida xaalku yahay imika. bidhan labadii usbuuc ee la soo dhaafay roobab xoogan oo ka da'ayay gobolka iyo webiga Shabeelle oo inta aanay roobabka guga bilaabanba horay biyo u keenay ayaa sababay in fatahaad uu ka sameeyo magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. sida aadka ah meelaha uu u saameeyay waa xaafadaha Kooshin iyo Xawataako oo biyuhu ay wada galeen isla markaana qiyaas ahaan dadkii deganaa gabi ahaanba ay halkaasi ka barakaceen. dadka ilaa iyo iminka barakacay waxa maamulka gobolku uu ku qiyaasay inay ka badan yihiin ilaa 5,000 oo qoys. dadka barakacaya meelaha ay u barakaceen waxa kamid ah dhanka Ceel Jaalle oo bariga kaga toosan oo xoogaa buura leh webigana xoogaa u jirta. waxaanu ka warqabnaa in garoonka diyaaradaha oo kamid ah meelaha ugu waaweyn oo ay wax ku gaari jireen magaalada Beledweyne uu xiran yahay maadaama biyihii roobka ee halka degay aanay diyaaraduhu u suura galaynin inay iminka halka ka degtaan. sidoo kale magaalada Jowhar xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe iyana saameyn ayuu ku yeeshay oo ilaa 2 meel oo ila loo yaqaano ayaa biyo ka soo baxeen. dadka deegaanku ilaa iyo iminka waxay ku guuleysteen meel ka mid ah in ay xiraan halka biyaha isha kale ka fatahay ay barakiciyeen dad deganaa ilaa 4 tuulo oo ku teedsan webiga Shabeelle gaar ahaan u dhow ama daris la ah magaalada Jowhar. dadka qaar ayaa haddaba iyagu ka barakacay intaanu daadkuba u soo gelin waxayna noo sheegeen daadkani inuu ka duwan yahay ama fatahaadani kuwii hore ay u arki jireen. ayadoo biyo la arag inay qaxaan waxa ku qasba tabar badan ay biyaha haday soo galaan ay uga qaxaan iyo lacag badan ay ku qaxaan markaas ay ciidu ku guuraan ma haystaan. saawgeed marka roobkana waa diihaya oo roobka daamada roobka iyo biyaha haday isku qabsadaan 8 cunug markaad leedahay bixintoodu waa kugu adkaanaysa. kuwii hore la arki jiray iyo biyaha hadda waxa saameyn badan kuwan sababtoo ah guryaha laga qaxay biyo maysan gelin sida raadeerka sida oo inta badan ii sheegay Nuur Xawaad oo idinkiisa inta badan biyuhu ma soo gelin. waxaana cabsida ugu weyn keentay daamadii cirka oo roobkiyo si saa'id u da'ayo waadiyaashiyo biyo keenayo waxyaabahaas dadku ay maartay si aad ay cabsin weyn iyo baqdin ay ugu qabaan. haddii aan ka hadlo saameynta ama dhibaatada fatahaadu ay ku yeelatay magaalada Beledweyne waxa la qiyaasi kara maaha. waa wax qof walba oo caqli leh oo dareen leh oo dareemi karo magaalada dhan oo deganeed oo bulshadeediisaan ay u socoto oo wax ku horeeysan jirin gabi ahaanteedba.